السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وعلى ونكسر ميل والباء جوتان وسلامتهم وولكن زعيم شريف سيدا هريبا عن إذن كبالن قاضي معركتي إن أنا إذن سوق بقصوين كأدك ونكسر أنا إذن كعصري إن إلى سوق ودكتان قصوين كأدك وقيمة بدن سيدا تنو كلا فيديو قدام بأيام معركتي إذن كسوق بقصة عجيبة inkastoo muddo aan kala maqnayn adduun mashquulkiisa ayaa naga badan run ahaantii maanta qisada aan raba inaan nila wadaago waxaa ila soo wadaagay nin saaxiibkayga ah oo maaragtay ka soo jawaabay inaan hore idinka codsaday inaan qisooyinka noola wadaagtaan haddaba qisada ayaa ku saabsan family iyo nin oday ah oo sabool ah waxaa jiray waalidka marka ay dad wanaagsan yihiin waxay dhalaan uwad wanaagsan inkastoo ay jiraan imtixaanaad ilaahay xaggiisa ka imaada haddaba oday iyo xaaskiisa ayaa waxay dhaleen hal wiilkii ayaa markii waxyar uu soo yaro karo wuxuu noqday dadka madaxa adag oo ilaahay ayaa ku imtixaanay ayagoo la qiimeynaya ama la fiirinaya iimaankooda ama meesha ay ka taagan yihiin wiilkii ayaa ciddii noqday mid ka taga markii ay canaanatay hooyadii waalidka ayaa ah mar waliba mid jecel owadkiisa haddaba cunugii ayaa ka tagay oo wuxuu ka noqday dadka duurka galay maamada ayaa waxay ahayd qof aada u wanaagsan oo sadaqadana aada u bixisa haddaba waxay samayn jirtay mar waliba ay cuntada karisa ama muufada ay degto waayo dadka hore waxay aada u isticmaali jireen waxa loo yaqaano muufada markii ay degto ayaa waxay ahayd mid ku darta 2 xabo oo ziyaado ah ama 2 xabo extra markii ay cuntadooda cunaanna waxay ahayd mid saarta daaqada waxaa soo mari jiray nin aada waayeel ah oo haddana iska maskiin ah ninkii ayaa qaadan jiray muufadii wuuna la bixi jiray balse markii uu qaadana ayuu wuxuu hadal dhihi jiray haddii aad khiyaano ila maagan tahay adiga ayay kugu soo noqonaysaa haddii aad wanaag ila maagan tahayna adiga ayay kuu soo laabanaysaa sidaa u ahayd maamadii ayaa shaydaan u sheekeeyey wuxuu yidhi war maxaa ninkan mar waliba asxaanka u sameynaysid muxuu yahay hadalkan mar waliba uu ku soo celcelinayo haddaba asaga oo dhan ka takhalus ee dil maamadii ayaa waxay samaysay markii cuntada ay samaysay muufadii oo ziyaadada ahayd ayaa waxay ku dartay sun si oo odaygii u dhinto markii ay ku dartay cuntadooda cuneen ayay meesha u saartay haddaba odaygii sida caadada ahayd wuu soo maray meeshii ayuu wuxuu is yidhaahday muufadii meesha ka qaado mar allaala markii uu saan gacanta usoo laacay ayaa maamadii ilaahay qalbigeeda mutma-ina kusoo dejiyo waxay tiri ma hadal dartiisa ayaa qof bini aadan nafsadiisa u goonaysa odaygii ayay muufadii ka daftay ayadoona tiri waxyar ii kaadi way baxday isla markii waxay usoo hagaajisay muufo wanaagsan odayga markii usoo laabatay ayaa wuxuu ku celiyay haddaad xumaan ila maagan tahay adiga ayay kugu soo laabanaysaa haddii aad samaan ila damacsan tahayna ama wanaag adiga ayay kuu soo laabanaysaa muufooda ayuu qaatay waana iska tagay galbihii markii la gaaray ayaa albaabka la soo garaacay maamadii ayaa albaabka furtay misna waaba wiilkeedii oo duruuf aada u daran ka muuqata maamadii ayaa iska ooysay wiilkana wuu ooyey sheeko kadib ayay waxay tiri war xaggee ku dambaysa oo yaa ku siin jiray waxaad ku noolaata wiilkii ayaa ku jawaabay hooyo nin oday baa jirayo asaga ayaa wuxuu ii keeni jiray maalin walba muufadaas ayaa ku noolaan jiray markaas ayay haddana mar labaad aada u ooysay oo tiri wallaahi alcadiim waxaan aada ugu qanacsanahay inaa maaragtay ii soo laabatay tan labaad hooyo gacanteeda ayaan kugu dili lahaa haddoosan rabbi ii gargaarin waayo muufadaas gurigeena ayaa laga soo qaadi jiray mar walibana oo odayga qaadayo ayaa wuxuu ahaa mid yidhaahdo haddii aad xumaan ila damacsan tahay adiga ayay kugu soo laabanaysaa haddaad wanaag ila damacsan tahayna adiga ayay kugu soo laabanaysaa markii aga sheekaysay wiilkii qisadii ayuu wuxuu noqday mid ku cibro qaata qisadii wuxuuna noqday wiil wanaagsan hooyadiina saas ayay wiilkeeda ku heshay haddaba haddii aad ku cusub tahay janaalkeena fadlan subscribe like share commentina nala wadaag sida qisooyinkan oo wanaagsan si aan ula wadaagno asxaabteena kale waad mahadsantihiin waa inuu next video insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu